السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أدبان إني سلام يا دمان ومدى الصوماليات أخيارت شرفت لي عسي لي دمانتين وحن إليه سود هذا ولا ليال وولالكن علي جامعة وأمر لبعض مغال عصب إن شاء الله بإذن الله الكريم عوا حنك هذه دونا ودن كيني هويو هدي إلى هاي المو مالمهن وحيابهن آد كلو هذا الهيو كل تدكو حن مالي هدوم بيكو براروغين لكن waxna waa dagaal intan ka fog waana nimankan madowga ah macnaha inagu soo duulay insha Allah bidmillaah karim waxaan ka hadli doonaa waxyaabahan soo celcelinaya hadalkan Kenya iyo Soomaaliya horta Soomaaliya way bayna haysataa inaga maanta inay qabsana hore inoo qabsatay ummadda Soomaaliyeed hadday dhiig leeyihiin oo wax dhiigunu ku jiro maanta marxaladahan la jooga marxii la fiirsan jiray maaha haddaan bari ahaan jirnay libaaxii Afrika haddaan bari ahaan jirnay macnaha dad aanan ciiduloodin karin maanta sidii ma yihiin Kenya wayna sahansatay inta badan dadka Soomaaliya waxay ku soo celceliyaan Kenya wayna martigeliso dad Soomaaliyeed bay haysaayo dad sheekaran iga sheekeynaya nin baa bari nin buu lacag ku lahaa deetana markastoo qof kala hays qabsadaan wuxuu sameyn jiray ninkaas soo kaxaysan jiray wuxuu qabsan jiray marag wuxuu ka dhigan jiray marag buu ka dhigan jiray wuxuuna jiray waxa inaad ninkan inaad waxa isku haysid yaa ku maraga hebel bay marag oran jiray ninkii kalena wuxuu ka baqayaa inuu lacagtii uu kula haa ku qabsado marag uu furaa maalintii damuunikii uu fikray wuxuu inuu ninkan maalin walba kiisana la intuu shaqo saaraya maxaad samaysaa lacagtiisa yariid buu bixiyay Soomaalida waxa ku maamada dacwo halkay macal ku aragtay macal ugu goda Soomaaliyeed maalintii dambe inay isqabsadeen ninkii buu soo kaxaystay marag buu keensaday waarnaga tagbuudini wixii aad kula waan ku siinay maragna ku furmayne waxa aad sheegaysaa wax siliyara toolana marka waxaan uga socdaa Kenya ninkii marag loo haystay dadka ayo qaxootiga Kenya ee Soomaalida Kenya joogay dadka Soomaalida Kenya ku nool bay inaga inoo haysanaysa marka waa maya Kenya shacab mucaarid iyo muxaafid waxay isku raaceen Soomaaliya inay qabsadaan bay isku raaceen warinagu haddaan Soomaali nahay dadkii wadankan iska laahanahay xaggeen ku maqannahay marka inagu ورمضان Soomaaliyeed xillimaa xinjirihii dhiiga hal laga saaray xillimuu damiirkayga san u dhintay xillimaan sidan noqonay ma maantu inaan ka yara madoobi habeen iyo maalin inoogu bootaynaya wuxuu doonay naga samaysanaya maanta mid dhan macaaridka ninka ugu necab waliba ninka wadanka haysta ayaa wuxuu la soo istaagay Soomaaliya waa ina wixii la doono laga samaystaa wixii doonay naga samaysteen war libaaxii hurday wuu soo kacayniyo Soomaaliya way soo kacday Kenya nimankan yareeyay haysanaysa dariiska cawlcawlan xiran war waa libaaxyadii Afrika waa cid hor istaagi karto Ilaahay abuurtay ma jirto laakiin waxayna haysan garab ka dambeeya Soomaali sida waraabahaysa isku hiigtayadu saasay isku cunaysa dad is cunayaana waxba iskama celiyaan shalay toole Muqdisho dhexdeeda xabad la isku ridayay bab xabadaad hooyada iyo caruurtaadii ehelkaaga ku ridayso nin baa kaaga baahan ku rid maanta taagan tahay nin baa kaaga baahan qayrkaaya oo adiga raba inuu wuxuu doono ka samaysto kaasa kaaga baahan inaad iska celiso xabadaad ku rido kaaga baahan hooyada 60 jirkee maanta magaalada ku nool Soomaaliya meeshay doontaa kaga noolaato hooyada Soomaaliyeed kaaga baahna inaad xabad iyo mushkilad ku rido laakiin waxa kaaga baahan ninkan qayrkaaya iska celi maanta loo baahan iska celiye walaalka Soomaaligo adduunka meeshaad ka joogto ninka walaalka dhiigaaga inuu ku muuqanin waa inuu ku muuqda cadawga dadkaagu iyo dalkaagu
ma maantay inoo booteynaysaa Kenya waxay rabtaa inay naga samaysato ma taasaa wax la qaataa dhiig laawa siyaasi adaan kula hadlayaa damiirkaaga xaguu qabtay muxuu kugu muuqdaa walaalkaaga Soomaaligi doofaarka ficilaan baa loo cadaabaa leeyahay warma maantan Kenya dhulkeennii ay dadkeennii hay maalin walba waxay doonto ka samaysataa shacabkeennay ku tumataa waxay doontay ka yeeshaa cid hor istaagi kartaana ma jirto war xaguu maray damiirkeennii boorsooyin baa iska sidataa siyaasi baan ahaadi leedahay waddankan rabaa inaan qabtaadi leedahay xaggeed ku maqan tahay hadduu isagu ku soo dirsaday dalka ka tago isaga isaga raac baan ku uri Kenyana rag iska daayo dumarka Soomaaliyeed baa ku filan wallahi dumarka Soomaaliyeed baa ku filan baan ku uri rag iska badhaaf rag isa soo gaari maan Kenya hadday is leedahay Soomaaliya 30 sano burbursaneed oo saasay tahay warlay libaaxi hurday uu soo sarakacay cid hor istaagi karta Soomaaliya ma jirto laakiin waa xillima waa markaan inagu noqono dad isku duuban oo meel u wada jeeda dhageysaamiga Kenya waa isku macaarid bay leedahay maxaafid bay leedahay dawlad madaxweyne leedahay dad baa haysta dadka macaaridka ku imaalintay Kenya noqdeen adigu Soomaaliyow maxaad u noqon weyday Soomaali maxaad u noqon weyday Soomaali halku ilaahay ka mariyay ficilkii iyo dadnimadii iyo waxaad lahayd war dalkan Soomaaliya la yiraahdaa innagaana iskale Kenya malaha inaga iskale ilaahay mooye cid noogu amarku taalayn kartaa ma jirto war ummadda Soomaaliyeed ee reerada iska roga nacdashan la soo dirsaday siyaasina maahine ciduu doona ha noqdo qofkii raba Kenya inuu adeego ha u tago shalay tolo hadlayeen qof kasta wuxuu ka hadlay Soomaaliya xiniyii ma shalay ay ku hadlayeen maanta kula hadlaan Kenya du Soomaaliya ha ku hadlo waa kana du Soomaaliya ha kula hadlo muxuu hadlaayay dameerkan madoowe maanta hadlay waa ninka ugu macaaridda badan maxaan ku dhahaa Kenya maanta inagu afka inagu soo taagay adigu haddaad macaarid tahay bal dawladda halkan maxaad ugu hadli weyday ma iyaga soo dirsaday ma iyaga u shaqaysaa haddii jawaabtu maya tahay ka hadal oo diid xumaanta waddankaagii weeyaane haddii iyagu soo dirsadaan Soomaa raac xabad baa waji lagaaga dhufo waliba adigane war xageen qabanay maxay nagu dhacay maalin walba ubadkeennii caruurteennii baa lagu dul ciyaaray wixii la raba laga samaysanaya oromada Soomaaliyeed war reeriyada iska dulqaadi Ilaahay baan siiyay war waxaan reeriyada iska dulqaadanayo adigu rabaa inuu ku burburiyo ciidankiisina waddankaaga dhexdiisu joogaan lacag buu kugu qaataa lacag tan uu kugu qaataa waddankaagina u dhex joogaa dhibaatada ugu badan ee maanta Soomaaliya ka socota anu waxaan aaminsanahay inay Kenya ka dambayso iyadu hogaaminayso xitaa caruurteennii ubadkeena la leenayo iyaga leenaya because of nin cadowga marka bal ka waran nin cadowgiisii ilaali ku yiri dhulka ilaahay nilajar ilaahay baan inii bariyay war ma nin cadowga aad leedahay ilaali oo dadiga cil adigu waaba cadowgaagii koobaad muxuu ku ilaaliyaa sidoo ku ilaalini seedu aamintay ciidamadii Kenya halka joogo bi kulil ciidamadii Kenya waa maxay ciidamada Kenya waa cadowgan aad maalin walba saysatiin sidoo ku ilaalini wuxuu rabo ku fududayn wuxuu rabo waddanka laga samaysanaya markaas maalin walba marka caruurteennii ubadkeennii dadkeennii ehelkeennii maalin walba halka lagu laayo ninka leenayana cid kale ma ahina waa xan madoowe dameerkada aamintay war maxaad ku aamintay war dhimo oo wana ku dhimo hada dhimanayso
wanaag ku dhima haddaad dhimanayso laakiin adoo nin madow daba taagan ha dhimanin waxay doonaan bay waddankeeni ka samaysteen dumarkeeni baa ku baaba'ay meesha carruurteeni baa ku baaba'day hableeni baa ku baaba'ay ilaahay dhiigga idinka qaada dhulkeeni la jar war maxaad haydeen maxaad ka soo jeediin aaway dadnimadeeni Soomaalnimo aaway xagee qabatay mid walba kursigaaga fiirso mid walba dhiigga shacabkaaga cab mid walba ka kala fiiri ina yar oo madow sidiini oon diin haysan dhaqan haysan waxa la wuxuu raba dhulkeena ka samaysto بريتون لو أحلى سويستاك تاسيا سواء أنت سود مدوي سو حرته تاينا يسو حرته واحد ربطه ماشي اللي سويستاك حداد ربطه مركو هورا ودن كينا توقامي سو النقطة حداد ربطه مركو هورا غير كاس كدعي مركو هورا غير كاس كدعي يعني ماشي يسو فديني اسكدعي غير كا مركو هورا ديد هيريدن markaasad waddanka hogaamin doontaa hoggaanka cadaaliga ilaahay baa doortaa samada laga aqbalaa hoggaaminta dhulka maaha codna laguma helo lacagna laguma helo samada laga aqbalaa taa doonaysa inaad qabso mid kastaaba mid buu qori daba haystaa mid kastaaba mid buu leeyahay caaw miyuu dhinto kow mi caaw ka tiraahdo qofka ay kow ka oranaysan waayo waa walaalkii garabkiisa midiga ayuu rabaa inuu kow ka siiyo orod kaba qaad noqo Kenya tag socaan ku ri Kenya tag oo kaba qaad noqo dhulka ilaahay kula gooye Kenya tag oo kaba qaad noqo kaba hooga dhaq hadaa doonayso inaad waxa noqoto war haduu damiir in uu damiir kugu jirana dalkaaga iyo diintaada iyo dhaqankaaga difaac innaga asaas kugu muuqana midkeema mid buu muuqdaa midkeema mid buu rabaa inuu kursiga riixdo waa intaad kursiga riixanayso horta marka hore dalkaaga nadiifi qurunkan iyo qashinkan ka buuxa ka dhex saar markaad intaa qabato waxa la waxaad jeceshahay waad helaysaa maxaad ku heli laakiin imiga Kenya inta tagto lacag intay ku soo siiso Soomaaliya waxay doonta ka sabab ku tiraado kan kala dab ku shid kan kala sidande mid kasto oo siyaasi intuu socdo Kenya taga muxuu ka doona Kenya ma Kenya laga xukumaa wadanka muxuu ka doona Kenya siyaasi inta waxba kama qaban kartid Soomaa dhalinyarada Soomaaliyeed wadan ku filan iskaga bax والله بالله والله وانو كفلنا ما كاذي بانو كيني كينيان كاذي ايانو كينيان إنن كيرا عسكرية Soomaaliga حال عسكرية قرية آكاسيتا بقولن أو كينيان بيوم عبيو قصة محوكو دماني متقانا دل كيسي دين تيسي يدقن كيسي بكو دمانيا والله إنو بقول كينيان إنو نداهي لكن يا دبدا هيا حيوان با دبدا هيا سياسي اسكو شيغا دبدا هيستا markaas iyaga kala jiitaan isku horgeeyaan inay waa dameer la soo dirsaday ormada Soomaaliyeed war waxani wixii la eeganayay maaha war heeriyadan iska dul qaada islaamuhu qaqaawna miirooga iibinay ay markii miirooga yara laga iibsan waayo waxay doonaan rabaan inay nagu sameeyaan markaas uu ciidankoogina lacag inta ku qaato waddankiisa u dirsada bangigiisa ugu dhacda lacagta ugu qaata meesheen lacagta intuu ku qaata ma taqaanin dhiigga ummadda Soomaaliyeed daata ugu qaata dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ku qaata lacag suuna mashruuciisu dhamaanba 3 bilood markay joogtaba mid uu fududeeya kaasa magaaladeena gilgila waddankeena ku dhanta caruurteena ku dhintaan inagu aan la ooynaa yar iyo weyn bayna saameeya arxoolaha ma taqaana xayawaanku waraabuhu markuu u soo dhaco neef uu qaataa hadduu neef cuno way didaan markay didaan waxoogaa ka bacdi way ilaawaan war Soomaali ma xayawaan ba
محوليه ورابوه سود عي صومالي نقطي مين الدمير لهين ديقوغي آوي حقي قبتين ضمير لاوي حقيتكم مقنتاي صدح بلودك بعد أنا متكلك هو سمايان وحن نقانا وكلي سلو أويو بس سلو أويو ما نقانا دولكو كله قوي أما مدحا هاو أما مجا هاو أما حلبان هاو أما وحكلا هاو ودنك أديغا عني دولك إلهي كل جري أديغا بلا مستقبل نغدغي أديغا نبربريي أديغا قحوتي نغدغي أديغا دبا دلفا وروحان أسكا دول قادنا إلهي بارسقنا سيه وحن wax la eegan kara ma Soomaaliya waxani wax la eegan karo la eegi kara maaha taageer walaalka gacanta qabso maalintay dal noqoto ha ka fikirin kursi hana ka fikirin madaxtinimo maalintay dalkaaga noqoto iyo dadkaaga yaad xukumi Soomaaliya haday dhulku la go'o yaad xukumi isagaad kabaha u baalashayn saa ina wax kala qabataa ma jirtay ummadda Soomaaliyeed way u jeedin maanta wax dhacaya waad arkaysiin maanta marxaladda waddankeeni ka jirta war ummadda Soomaaliyeed heeriyadan iska dul qaadno waxani wax loo dul qaadan kara maaha nimanka siyaasadda ugu jira labaha soo galaan inay Kenya noqdaan iyo inay Soomaali noqdaan bes Soomaali markuu noqonayo waa inuu noqdo war ninka waxa looga baahay xildhibaanka kursiga iska fadhiya lacagta malaayiinka maxaan ku qarash gareeyay qajaanka iyo qurunka ku shaqeeya siyaasadda ku qarash gareeya wuxuu ku qarash gareeyay siyaasadda kursiga ku doonayo askartiisa iyo shacabkiisa ku qarash gareeyo kuwaasa u baahan in la maalgeliyo intaad kursi ku raadsanayso dariis ugu iibi dawo u sii caruurtiisa sii hadaa damiir leedahay waay hadaan damiir leeyahay Soomaa raac Kenya dhulku kula go'ye orada raac Kenya wadanka iskaga tag 30 sano jirna mustaqbalkayga ku ciyaareen wayna burburiyeen sidaasay noo galeen adduunyada qaxootay naga dhigeen maanta wali hadda wixii bay sii wadaan siyaasi Soomaali ama Kenyan labada mid soo gal wax kale isku iiman karna ma jirto ummadda Soomaaliyeed meel kasta adduunyada joogtiin aad iyo aad baan idin salaamaya barnaamijkana share gareeya dhamaantiin waxaa dhigayo warkacay waayo waxani wixii bin qof damiir leh uu eegan karay maaha way dhaaftay xisaabtii loogu talagalay way dhaaftay barnaamijkana share gareeya like tana saara subscribe tana saara barnaamijka insha Allah bidmillah kareem برنامج شفرة بدل ما خدي عارين دونا ومدة الصومالية ملك استوديو جوجنا وين كعماس قبصدان وين إسكت عفوا وحيابها يجوز طب الصعود كي أي هبان يمالي يجوز لده بيستاجين ومبهرين ما أنت وحاسي ورقار أنديل لهين نقل لهين إسلام وح هاي ثاني جرين ما أنت الصومالي ومدوبي نلوك على جران أنا قوستان حاجة لحان قدر أنت كمان لما حق قدر قاري توبيا قدر قار صومالي معك على قدر أنت يزنور استنى سوق جزء حرنتي ومدة الصوماليات بيكسوا صوانين قبصدان وحكلت كنافو حاجتك ما أنت بليشك أديكم مال أنت أنكو ويدية هالكي تيجي أولين بقنتك إنان يا أفرتك إنان اللي حطبنك إنان يا بقولك إنان لقى طلاب أيو والله وبالله وطلعي بنقول دارن عد كلينين سبب بهاي والضمير هذا عن طبق النواي أما سياسي جن هالنقطان أما هالنقطان واحد يجي سؤال يكسدي إذا ماذا سوامنا إلى لي ما حيكون إلى لي يقدروا كل شيء يا أدوك كل شيء ما حيكون إلى لين كره ما يقول إلى لين كره مشروع عقد سكيل عشان يو ما عندي ummadda Soomaaliyeed meel kasta dunida joogto waxaan rajaynayaa barwaaqo waxaan rajaynayaa guul waxaan rajaynayaa midnimo waxaan rajaynayaa maalin maalmaha kamid ah waqtigan waqti ka fiican inaan iskugu nimaadno biidmillaahi kariim
ummadda Soomaaliyeed waxaan isleeyahay gacmahaas qabsada dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan isleeyahay war intaad midkiinba mid eegaysiin ku kala eegaysiin war idinku gacmahaas qabsado dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina u dhintaniyo ninka askariga maanta bulaha uu jooga ama xuduud Kenya joogana siyaasi xoolihii ummadda intaad cuntay haddana waxa kale ku raasana ninkaas u baahan ninkaasi meel kastoo adduunyada joogto ummadda Soomaaliyeed waxaan inii rajaynayaa guul iyo gobonimo wanaag iyo sharaf aan inii rajaynayaa aad iyo aad baan inii salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wadaagnana kala sooci maayo waa sokeeyahaygi iyo sintaa bari skoyale أنيقونا مسيكني مستفيد عن شكا